doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobka koowaad si waafaqsan qodobka 45aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ku dooranayaa kulan guud oo uu shir gudoominayo gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya labo musharax kasta oo u tartamaya jagada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu musharaxnimadiisa iyo barnaamijkiisa doorashada ka hor cadeynaya oo u bandhigaya kulan guud ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya saddex markii loo cadeynayo doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xildhibaan kasta oo ka mid ah golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay hal cod afar golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ku dooranaya habraaca soo socda si waafaqsan qodobka 45aad farqadiisa koowaad ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya musharaxii hela aqlabiyada 3/2 tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada ayaa ku guuleysanaya madaxweynenimada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya b haddii wareegga koowaad musharaxna ku guuleysan waaya aqlabiyada wadarta guud ee kor ku xusan waxa afarta musharax oo wareegga koowaad helay codadka ugu badan loo qabanaya wareeg labaad waxaana jagada madaxweynaha dowlad goboleedka ku guuleysanaya musharaxii wareegga labaad hela aqlabiyada 3/2 tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada c haddii wareegga koowaad kadib ay musharaxiin isu tanaasulaan ama iskooda uga baxaan oo laba musharax kaliya isku soo harta waxaa toos loogu gudbayaa wareegga saddexaad oo musharaxii hela codadka ugu tirada badan ayaa la cadeynayaa in uu ku guuleystay jagada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya d haddii wareegga labaad musharaxna ku guuleysan waaya aqlabiyada 3/2 waxa 3/2 wadarta guud ee golaha wakiilada musharaxa oo wareegii labaad hele tirada musharaxa oo wareegii labaad helay tirada codadka ugu badan loo qabanaya wareeg saddexaad haddiise uu jiro musharax saddexaad oo helay codad barbardhac ah wuxuu xaq u leeyahay in uu ka qayb galo una gudbo tartanka doorashada wareegga saddexaad waxaana la cadeynayaa oo la baahinayaa in musharaxii wareegga saddexaad hela tirada codadka ugu badan yahay musharaxa ku guuleystay loona doortay in uu noqdo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobka labaad musharaxiinta madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya musharax kasta oo u tartamaya jagada madaxweynaha waa in uu 200 nuqul oo barnaamijkiisa doorasho oo waraaq ah iyo nuqul elektaroonig ah u soo gudbiya xoghayaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed si looga baahiyo barta website-ka ee baarlamaanka koonfur galbeed labo musharax kasta oo u tartamaya jagada madaxweyne waa in uu musharaxnimadiisa madaxweynenimo ka hor cadeeya barnaamijkiisa doorashana u bandhiga golaha guud ee baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya saddex musharax kasta oo u tartamaya jagada madaxweynenimo waa in uu soo gudbiyaa dukumeenti cadeynaya in uu buuxiyay shuruudaha madaxweynenimada afar musharax kasta waa in uu bixiyaa lacagta curaarta oo dhan 20,000 musharaxiin 20,000 musharaxiinta dumarka 10,000 lacagtaas oo dib looga celinayno laguna shibayo xisaab furan numberka
hal hal saddex hal eber hal 294 ee guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ku leeyahay begaga dahabshiil baydhabo. 5 dhammaan musharaxiinta madaxweynenimada waa in ay ogolaadaan in ay u hoggaansamayaan habraaca iyo heer nidaamyo kasta oo uu ansixiyo guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleed guddiga doorashada madaxweynenimada. 6 guddiga doorashada wuxuu kulan guud ee golaha wakiilada koonfur galbeed u gudbinayaa kaliya musharaxiinta la diiwaangeliyay ee soo buuxiyay shuruudaha madaxweynenimada. guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya shuruudaha musharaxiinta madaxweynenimo. qodobka 46 ee dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaa loo dooran karaa xil madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed muwaadin kasta. 1 muwaadin Soomaali ah u dhashay deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya una qabin xaas ajnabi ah. 2 in uu muslim yahay kuna dhaqmo diinta islaamka. 3 da'diisuna aanay ka yarayn 40 sano. 2 leh aqoon ama waayo aragnimo u qalanta xilkaas. 5 dhimirkiisa uu dhan yahay. 6 gelin dembi culus oo ay maxkamadi xukuntay. 7 inuusan haynin wax xil ah oo loo magacaabay ka hor intuusan musharaxu soo gudbin arjigiisa musharaxnimo. waa in uu iska soo asilo wax allaale iyo wixii xil ah ee uu hayay ama ku magacaabanaa, isla markaana uu codsigiisa ku soo lifaaqa waraaq caddaynaysa in laga oggolaaday istiqaaladiisa. 8 waa in uu bixiyaa duraarta dhan $20,000, musharaxiinta dumarka $10,000 oo aan dib looga celinayn laguna shubayo xisaab furan nambarka 1131 eber 294 ee guddiga doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ku leeyahay begaga dahabshiil baydhabo. 9 inuu ogol yahay in uu u hoggaansimayo habraaca guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo in uu ku qanco natiijada doorashada.